waxaad moodaa qof waliba markuu rabo dantiisa inuu sharciyeeyo qodobka 6 faqradda 2 iyo qodobka 3 iyo faqrad A iyo wuxuu rabo iska daldalaa laakiin wax constitution ah ama dastuurka annaga aan dhiganay la ilaaliyo ayaa iska yar golaha baarlamaanka ay maanta annagu aan dadka ku matalno waxa weeyaan idinka inoo maamula waxaad noogu maamushaan waxa weeyaan waa wada tashi iyo aragti wadaag golaha wada tashiga ayaa tihiin macnaheedu waxa weeyaan inaad dhageysataan talada dadka aad maamuleysaan inaad dhageysataan aanay ahayn inaad waxa weeyaan sidii idinka aad doontaan aad wax u soo qorataan 15 gudi ayaa baarlamaankan qoran hal kamid ah gudoomiye han noqdo gudoomiye ku xigeen han noqdo xoghaye han noqdo aanay cidna nagu matalin waxa sii dheer habdhoorihii baarlamaanka 7 xildhibaan ayaa warqadoodii lidin keenay saxiixay markaasaad ra'yigiina ka qaadateen baarlamaanka noocu u shaqeeyaa marka waxaan rabnaa inaan ogaano baarlamaanka ma baarlamaan Victoria mise waa baarlamaan daraad haddii aan ku eedeynaynin madaxda qaranka inaanay goyihii wasiirada ku soo dhisin wada tashi oo ay ka gudbeen wada tashiga ay ka gudbeen maanta inoo cadeeya inoo aqriya inaan fahanaan rabnaaye waxaad ku saleyseen ama waxaad u tiirsateen warqadan aad ku soo magacaawdeen dadkan inoo cadeeya waxaan jeclaan lahaa qodobkan totally ba in laga saaro dibna loo noqdo talana laga geliyo xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantahay